gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay taliyaha cusub ee ciidanka booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Sare Cabdi Muuse Cabdilaahi iyo taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka Togdheer Axmed Maxamed Guutaale. munaasabada xil wareejintan oo ahayd madal ballaaran ayaa ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Khadar Faarax waxaana kamid ah hadaladiisii sida aynu halkan xilka ugu kala wareejinaa hadii ay ka dhigo taliyihii qaybta booliiska hore Axmed Maxamed Guutaale waxaynu kaloo halkan ku soo dhaweynaynaa taliyihii qaybta booliiska cusub Gaashaanle Sare Cabdi Muuse. farxad bay booliisaan noo tahay iyadoo ay sunnaha dawladeed tahay in maalinba mid yimaado maalinba mid lagu eego xilka taliyihii qaybta cusub Cabdi Muuse shaqa ahaan naguma cusbay xil ahaan buu nagu cusubiyay isagana horaan u soo wada shaqeynay waa markii saddexaad baan u malaynayaa aan isugu nimaadno gobolka Togdheer inkastoo aanu gobolka kale ka soo wada shaqeynay isagana waa soo dhaweynaynaa. waxaan leeyahay taliye gobolkii aad ogeyd ee hore baad uga soo shaqeysay ku soo dhawow burcadii hore ku soo dhawow. waxaan soo dhaweynayaa taliyaha qaybta ee cusub Cabdi Muuse Cabdilaahi ayaan soo dhaweynayaa. waxaan leeyahay taliya qaybeed ma cusba burca kuguma cusba intaasoo goor baa timi oo aad ka shaqaysay raggaagii iyo ciidankaagii baad u timi annaguna waa joognaayoo sidii baanu waa kula shaqaynaynaa. taliyihii hore ciidanka booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Sare Axmed Maxamed Guutaale iyo taliyaha cusub ee ciidanka booliiska gobolka Togdheer Gaashaanle Sare Cabdi Muuse Cabdilaahi oo dhankooda halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxaa kamid ah sida tan waa xil wareejin waxaan xilkii ku wareejinayaa qaybta booliiska gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdilaahi oo runtii ah korneyl booliisa oo saaxiibaday raggaan isugu dhownahay booliiska ayuu ka mid yahay Cabdi Muuse. waanu soo wada shaqeynay in badan booliiska in badan baan ku soo wada jiray. saaxiibkay Axmed Maxamed Guutaale kullay in badan baanu soo wada shaqeynay aad baan u salaamayaa saaxiibna waan nahay taliye sadhiq baanu ka soo wada bilownay ilaa taliye qayb baan wada haynay intaasna waa iga inta dadweynaha reer Burcaan aad baan u salaamayaa. inta jeer aan ka soo shaqeeyay ee hore si wanaagsan baan u wada shaqeynay annagoo jecel oo sharaf leeyaan kala tagnay iminkana waxaan rajaynaynaa markaan kala tagayna hadii Ilaahay yiraahdo in annagoo sharaf leh ku kala tagno oo naan xumaan isku qabin. abaanduulaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka Soomaaliland Faysal Cabdi Bootaan iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo oo dhankooda halkaasi ka hadlay hadaladoodii waxaa kamid ahaa sida sunnaha dawladnimo uu weeyay in maalin walba yimaado nina la bedelo. ninkii la oran jiray Guutaale aad iyo aad buu burca uga shaqeeyay hadeerna wuxuu taliskiisa guud Cabdi Muusena waa soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi wanaagsan ku soo dhaweynaynaa taliyaha qaybta cusub. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa oo soo dhaweynayaa marka hore oo sagootiya saaxiibkay taliye Axmed Maxamed Guutaale oo runtii naga dalacay gobolka Togdheerna waxa la mas'uuliyiinteeda cidii xil ka soo qabato way dalacdaan hoos ma noqotay way dalacdaa. taliye wad naga dalacday waxaan rajeynayaa inaad noo tagtay caasimadii inaan kugu soo hilan doono oo wax badan oo runtii caasimadda nagaga xidhan inaad noo fulin doonto ka ciidan ahaan iyo ka gobol ahaanba. sidoo kale waan soo dhaweynayaa taliye Cabdi Muuse oo runtii isagu khabiir ah muddo badan gobolka ka soo shaqeeyay wax badan aan loo sheegayn ragga ciidanka haday noqoto iyo hadii ay saraakiisha kale guddiga nabadgelyo ay noqotana intaba ay soo wada shaqeeyeen is garanayaan. waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.